deegaankii baan u soconaa dhibaatadu ka dhacday si aan ula wadaagno murugada iyo dhibaatada meesha ka dhacday ilaahaydnkii waxaan ilaahay ka baryaynaa in ilaahay nabadgeliyo iyo walaalnimo iyo khayr ilaahay uu siiyo dadka walaalka runtii waxaan isleeyahay markaan u tagno iyaga dhex tagno ayaanu la xisaabtamaynaa leanno dadkay laayeen waa dadkii annagu aanu ehelka iyo xigtada iyo qaraabada u ahayn waa dadkaanu ku xisaabtamaynay gacanku dhiiglayaasha iyo dhibtaa dadka sameeyey oo labada beelooda markaanu u tagno ayaanu waxaanu oran lahayn ku oranaynaa nin kasta oo dila qof ehela oo muxuu ahaayey garabkiisiiya marka hore wuxuu galay dembi weyn oo marka shirkiga laga reebo waa dembiga labaad shirkiga ka horeeya qatligu waa dembiga labaad kabaa'irta 10 ah oo ilaahay inoo sheegay waa qaybta labaad marka labaad wuxuu dilay garabkiisii iyo ehelkiisii wuxuu dilay oo muxuu ahaayey wuxuu sameeyey waxaan marnaba ilaahay wuxuu yiri adduunkaanoo la waayo qof islaama ama muumina dilkiisa baa ka weyn dhibaatada marka inta la eg annagu iyaga markaan